kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay deegaanada Soomaalida, Oromada iyo Hareerida iyo saraakiisha hay'adaha amniga ee dalka, waxaana kulankaasi faahfaahin dheeraad ah naga siiyay hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi. ujeedada ugu weynna waxay ahayd barigan Itoobiya deegaanada dhaca ay ka mid yihiin Hareerida, Soomaalida, Diridhaba, Oromada, bariga Hararge iyo Miiraab Harargeeba in laga wada hadlo barigan Itoobiya maadaama Itoobiya ay ku nool yihiin 3 meelood marka loo dhigo meel ahaan in nabadda barigan Itoobiya ay asaasiga u yihiin kadibna nabaddaas la gorfeeyo iyo wixii caqabad ku noqon kara ujeedada ugu weyn waxay ahayd sii xoojinta iyo dardargelinta nabadgelyada guud ee bariga Itoobiya in xal la iska saaro ayaa ahayd shacabka deegaanka Oromada iyo shacabka deegaanka Soomaalida waxaan u gudbinayaa koow waa labada deegaan ee isugu dhow xuduud dheerna leh deegaanada kalena isaga dhow xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo dhaqankaba xataa diimaha ay diinta Islaamka lafteeda ay meelo fara badan ka wadaagaan marka dadka sidaas waxaan farayaa koow wax kasta oo isku dhac keeni kara in laga fogaado wax kasta oo isku dhac inuu dhaco sababi kara in laga fogaado haddii ay deegaamayn tahay haddii ay barojekad dowladda ay fulinaysa ay tahay laftooda in marka hore labada degme ay ka fuliyaan labada deegaan ay ka fuliyaan ama labada goobood ay ka fuliyaan shacab ahaan la is aaminsiyo hadday Oromiya fulinayso iyo hadday Soomaali fulinayaanba sida uga wada faa'iideysan lahaayeen marka hore shacabka laga dhaadhiciyo dowladuhuna ay marka ayaga awareness ku ahaadaan guud ahaan nabadda guud ee deegaanka labada dhinac iyo labadaas ismaamul dadka ka soo jeeda sidoodabana inay ka digtoonaadaan wax kasta isku dhac keeni kara waxaa laga hadlayay wada shaqaynta isku dhacyada iyo khilaafaadka beelaha iyo xuduudada wax fiican oo ka jira hadda ka hor dhibka jira waa la ogaa laakiin eega guulo fiican ayaanu ka gaadhnay taasna waxaa keenay wada shaqaynta iyo wada hadalka aan leenahay maamulka Oromiya ha noqoto ama Harar ha noqoto ama Diridhaba ha noqoto guud ahaanba markuu maamulku isagu isfahmo oo wixii jira dhibkiisa ka qiimeeyo nin walba aagiisa sidoo xal uga heli lahaa waxaanu kala qaaday waajibaad baan kala qaadanaynaa kadibna waan soo noqonaynaa oo wixii la sameeyay nin walba waxa uu qabtay ayaan ka wada hadalnaa dowladda deegaankeena 100% waa nabad wax dhib ah oo imaka annaga naga adwood weyn oo ka jira ama uu dhacay aan leenahay ma jirto laakiin taxadarka iyo nabadgelyada oo la ilaaliyo nin walba askari kaliya ma aha inuu shakhsi kasta kii baa mushtari ah kii arday ah kii oday ah iyo kii dhalinyaro ah in wadanimada la ilaaliyo nin walba nin wixii wax sameynaya ee magaaladiisa gubaya ee dadkiisa balaayo ku abuuraya inuu heeyiraado oo dalkiisa iyo dadkiisa ilaashado oo wixii information ah soo baxayo arka ee waxun wixii sameynaya aagiisa oo ku arko inuu hay'adaha nabadgelyada la soo xiriiriyo oo isaguna qaybtiisa ka qaato gobolka Faafan xaaladda hadda nabadgelyo ku sugan yahay waa mudrintii aad u fiican gaar ahaan haddaan soo qaato degmooyinka jaarka aan la nahay Oromiya runtii meelaha nabadgelyo darrada hadda ka hor ka jirtay waxaa ka mid ahaa degmadan Tuli Guleed iyo Jinacsani dhinaca Baabili sidoo kale iyadana inkastoo sanadkii hore la xaliyay dhibaatooyin isku dhacyadii isbeddelka ka hor labada deegaan dhexdooda ka dhacay dhibaatooyin laga dhaxlay ayaa jiray marka guud ahaan hadda markaan eegno xaaladda nabadgelyada gaar ahaan degmooyinkaas taa markaan ka gudbo guud ahaan xuduudda aan la leenahay dhanka Oromiya hadda waa mid degan waxayna u baahan tahay mustaqbalka in wada shaqaynta la sii joojiyo la sii joogteeyo shirarka noocan oo kale la joogteeyo mar walba la qiimeeyo wixii qabsamay iyo caqabadaha jira taas marka in la sii xoojiyo laga maarmaana sidoo kale maamulada degmooyinka jaarka ayagana waxa aan ku adkeyn lahayn
in ay wada shaqaynta xoojiyaan mar walba si wada jir ah ay uga shaqeeyaan labada dhinacba caqabadaha yaryar dhexdooda jirana maaragtay si degdega loo furo